dhalinyaradi qarankaay duuxii dalkaygiyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay dhalinyaradi qarankaay duuxii dalkeeniyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayuulay dhagaysta dimagaya haweenku ee ka dhowra intaa kadib intaan maxkamaddu noo furmin dhammaan dadka jooga halkan fadhiya waxaynu nahay dad islaam ah Allah subxaanahu wa tacaala ummaddiisa wuxuu ku addoonsaday oo u dardaarmay ummadihii hore iyo kuwa dambe iyo bani aadanba alla ka cabsi gaar ahaan dadka muslimiinta ah taasaan dardaarmaynaa intaan maxkamadda furmin ka hor waxaa la yidhaahdo cadaalad ilaahi subxaana wa tacaala baa iska leh cidduu salan siiyo oo u gartaa gaaraysa waa wax qoran oo wax lagu xisaabtamayo dhibanuhu wuxuu u baahan yahay cadaalad kan ayadaysan wuxuu u baahan yahay cadaalad maxkamaddu waxay rabtaa cadaalad dowladdu waxay rabtaa cadaalad dalka iyo dadku dhammaan ma laha marka walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdilu insha allahu tacaala maxkamaddu maantay waa fadhigii saddexaad haddii alla idmana go-aan bay gaaraysaa Allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu na waafajiyo tawfiiqda intaa kadib waxaan rabaa inaan hubiyo inay fadhiyaan maadaama kiiska uu furmayo oo maxkamadda aan rabin inaan khilaafo waqtiga aanu qabanay oo ah 9 subaxnimo daqiiqadaha ka dhiman kelmaddaas waa wacdi dadkana waxaan u sheegayaa inay isdejiyaan go-aankan maxkamadda gacanta ku haysa wuu soo baxayaa insha allahu tacaala sida alla ka dhigana noqonaysaa maxkamadda sare ee dowladda Puntland maxkamadda sare oo ka kooban garsoorayaasha kale ah nuur ciise maxamed axmed haadi aadan yuusuf cabdiqani diiri cawl oo kaaliye ka yahay cabdullaahi cismaan maxamuud kaaliyaha maxkamadda sare xukumanayaasha cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdisalaam cabdiraxmaan warsame oo qareenno u kala yihiin qareen xabiib cabdullaahi ciise iyo qareen mustafa maxamed jaamac cabdishakuur maxamed dige oo qareen u yahay cabdirasaaq maxamed faarax tacfaanlayaal xafiiska xeeraryaha guud ee dowladda Puntland heerarka cabashada soo martay ama dacwadu soo martay maxkamadda darajada koowaad maxkamadda racfaanka waxaa ka soo baxay 2 xukun oo isku mid ah xafiiska xeeraryaha guud wuxuu ku eedeeyay xukumanayaasha magacyadooda aan soo sheegay dambiyada kufsi afduub iyo dil iyo qodobo kale intaa kadib asbaabta maxkamaddu markay aragtay duritaanka xukunka maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ee ku taariikhaysan 3 bisha 6 2019 ay xukunkaas oo ay ku xukuntay cabdifataax cabdiraxmaan warsame
يا عبد السلام عبد الرحمن والسمه قرنويهين حبيب عبد الله عيسى مصطفى جامع يا عبد الشكور محمد ديجا وقرنويه هاي عبد الرزاق محمد فارح markay aragtay maxkamaddu dhammaan dukumeentiyada dacwada ku jira markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ku taariikhaysan 27 bishii shanaad 2019 markay aragtay buugga baarista DNA natiijada ka soo baxday dhimashada marxuumadda Caaisha Ilyas maxkamaddu markay aragtay warqadda ku taariikhaysan 25 bisha 2019 ee dhaawac muujinta ah ka soo baxday isbitaalka guud ee Gaalkacyo maxkamaddu markay dhageysatay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame inuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kufsaday marxuumadda Caaisha Ilyas aadan qiraalkaas oo waafaqsan qodobka 149 xeerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay Cabdishakuur Maxamed Dige in maxkamadda horteeda uu ka qirtay inuu diyaarinayay qabrigii marxuumad Caaisha Ilyas aadan lagu aasi lahaa xukunka maxkamadda sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay diiday cabashada ay soo qaateen Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo qareen u kala yihiin Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Mustafa Jaamac qareen Mustafa Maxamed Jaamac iyo Cabdishakuur Maxamed Dige oo qareen u yahay Cabdirasaaq Maxamed Faarax maxkamaddu waxay ayiday xukunka tirsigiisu yahay ma raga na 115 kana soo baxay 30 bishii 6 2019 maxkamaddu waxay cusubtay sharciyada islaamka iyo qodobada qaanuunka suuratu Maa'ida aayadda 33 suuratu Baqara 177 kitaabka nidaamul qadaa 185 qodobada qaanuunka 401 398 440 434 garsoorayaasha maxkamadda sare Nuur Ciise Maxamed gudoomiye uu saxiixay Axmed Haadi Aadan Yuusuf xubin uu saxiixay Cabdiqani Diriye Cawn xubin uu saxiixay Cabdullaahi Cismaan Maxamuud uu saxiixay wabillahi tawfiiq maxkamadda xaranka dig waa barbaarsho waa dhalaan gardaasho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee dig waa barbaarsho waa dhalaan gardaasho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaabo labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhaxlaayo guushe waana dhidibka kaabo labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhaxlaayo guushe dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa
فيولا دقيستا دمك يا هوانكو يا كدورا كوا دغنك باسلو كدحنا الددوينها وإنان كديعنا